وعنا wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno isbedeladii u dambeeyay ee colaadda ka oogan gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya colaadaas oo u dhaxaysa militariga federaalka Itoobiya iyo jamhadda TPLF waxaana aynu si gaar ah maamka ugu soo bandhigi doonaa dagaalkii Arbacadii maanta dhacay iyo dhulka lagu kala qabsaday sidoo kalena waxa barnaamijka kamid ah warbixinta uu dagaalka ka bixiyay taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya General Burhana Jula macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka barnaamijkeeni kan ku horeeyay ee ku saabsanaa colaadda Itoobiya waxa aynu ku ogaanay dhawaaqii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ee ku saabsanaa qaaditaanka dagaalka madambaysa kadib marka sidoo sheegay ay dhamaatay muddadii uu qabtay inay maamulka Tigreegu ku joojiyaan gadoodkooda kuna dhigaan hubkooda xilliga oo aanay Tigreegu fulin amarka ra'iisul wasaaraha ee isdhiibista waxa kaloo aynu barnaamijka hore ku sheegnay saadaalihii sheegayay in ciidanka federaalku weerarkooda ka bilaabi karaan labadan dariiq ee midna kan dhanka xarunta Tigreega sii marayahay ka kalana uu dariiqa ka yimaada magaalada Gondar ee maamulka Amxaarada yahay dariiqaas oo sii mara bartamaha Tigreega ilaa uu ka gaadho magaalada Aksum waxa kaloo saadaalaha ku jira inay ciidanka Eritrea ka iman karaan dhanka waqooyi saadaalaha dhaboobaysan waa inay ciidanka Itoobiya Arbacadii maanta weerarkooda ka qaadeen labadii dariiq ee kale oo kadib markii ay hore u qabsadeen magaalada Alamata ay haddana Arbacadii maanta hore u sii socdeen oo qabsadeen magaaladan kale ee Marsa iyagoo ciidanka Itoobiya jihada uga jira haatan caasimadda Maqalla masaafo 100 kilomitir oo kaliya laakiin horumarka ballaaran waxay ciidanka Itoobiya ka sameeyeen jihadan kale ee dagaalka oo ah dariiqii ka imanayay magaalada Gondar ee marayay bartamaha gobolka Tigreega iyagoo gaadhay ilaa magaalada Shiraaro oo dabeetoo sii dhaafay jihada bari ilaa ay cadceedu ugu dhacday duleedka magaalada taariikhiga ah ee Aksum magaalada oo agagaarkeedana ku yaalo saldhig ciidamada cirka oo haddii ay ciidanka federaalku qabsadaan magaalada iyo saldhigeeda ay uga faa'iideysan karaan dhanka weerarada cirka iyo taakulada isbedelada kale ee colaadii maanta ku cusbaa waxaa ka mid ah ka qayb qaadashada diyaaradaha daroonta ee ka soo kacayay saldhigga Imaaraadku ku leeyihiin magaalada Casab ee dalka Eritrea mareegta warbaahineed ee Live UA ayaa waxay baahisay in diyaarado nooca daroonta oo ka soo kacayay madaarka ciidan ee ku yaala dekedda Casab ee dalka Eritrea ee Imaaraadku maamulaan ay sii wadaan in loo adeegsado inay waxyaabaha qarxa ku ridaan gobolka Tigreega warbaahinta gobolka Tigreegu waxay sheegeen in diyaaradaha daroonta ay dusha ka taakuleynayeen ciidanka Itoobiya ee bartamaha Tigreega soo galay markii dambena ay duqeeyeen ciidamadii TPLF-ta ee ka dhawaa aagaga taasoo loo arko isbedel khatartiisa leh oo ay Imaaraadku dagaalka qayb kaga noqonaya iyagoo qaatay kaalintii ciidamada cirka ee Eritrea inkastoo aan ilaa hadda dhinac saddexaad oo dhexdhexaadii cadaynin ka qayb qaadashadooda dagaalka ciidamada Itoobiya ayaa u muuqda inay kala jarayaan awoodda jamhadda TPLF taasina ay tahay sababta ay bartamaha gobolka duulaankooda ugu xoojiyeen iyagoo haddii ay magaalada Aksum gaadhaan uga sii gudbi doona magaalada kale ee Adigad dabeetana duulaankooda hoos u soo foorarin doona oo bartilmaameedsan doona magaalada xarunta ee Maqalla oo ay ciidanka federaalku dhanka koonfurtana weerarka ka yihiin taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya Major General Burhana Jula waxa uu sheegay in gulufka sharci fulinta ee ay bilaabeen ciidamada federaalku oo ku sii socdo qaab guul ah sida uu hadalkiisa u dhigay ሰራዊታችን እንዲወጋ በየቦታው ጠመንጃ አስታጥቋል መትረየስ ሰጥቷል ህዝቡ ግን ጠመንጃውን ወደ ሰራዊታችን አልተኮሰም መትረየሱንም ወደ ሰራዊታችን አልተኮሰም ለምሳሌ በአድኮኮብ እና እንዳባጉና እና ሽሬ አካባቢ ያለው ህዝባችን ያስታጠቁትን ከ200 በላይ
متريس لسراويتاችን አስረክቧል ጠመንጃ አስረክቧል ከሰራዊታችን ጋር ለመዋጋት ምንም ዝግጁነት የለውም የቲፒኤልኤፍ ወንጀለኛ ቡድን generaalka oo shijiraad galabnimadii maanta arbacada qabtay waxa uu sheegay inay ciidankiisu gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo ay dib uga qabsadeen jamhadda TPLF waxaana uu beeniyay inay dhinacyo shisheeye ka qayb qaateen dagaalka isagoo ka hadlayay qorshayaal uu ku sheegay inay lahaayeen jamhadda TPLF ayaa generaal burhanu waxa uu sheegay in jamhadda TPLF doonayeen inay caasimadda Addis Ababa ku soo duulaan oo xukunkana xoog kula wareegaan dabeetana markii inqilaabkooda la fashiliyay ay hadda ku jiraan fulinta qorshahoodii labaad oo ah inay wadajirka Itoobiya burburiyaan sida uu generaalku warbixintiisa u dhigay የአስፋልት መንገድ እየቆረጠ ድልድይ ያፈረሰ የሰራዊታችንን እንቅስቃሴ ለመግታት ሙከራ ያደረገ ነው ለምሳሌ በጨርጨር ግንባር 3 ድልድይ ቆርጧል በምዕራብ ግንባር ደግሞ ትላንትና ዶዘርና ግሬደር በሎቤት ጭኖ ሰራዊታችን ወደ አክሱምና ሽሬ አክሱምና አድዋ እንዳይገሰግስ መንገድ የመቁረጥ እንቅስቃሴ ነው ያደረገ ያለው ያው ሰራዊታችን መሻገሪያ አጥቶ መሻገሪያ እስኪያበጅ ድረስ ጊዜ እንዲወስድ የሚያደርግ ስራ ነው እየሰራ ያለው ኢንፍራስትራክቸር የማፈራረስ ስራ ነው እየሰራ ያለው ይህንንም ሰራዊታችን በጽናት እያለፈ الله يو عظيمو عسيسو جبارو ربي عنلوفتي عدير نقا أبورو كان عابدناين عيد وقسو جودنو عامهان أدونكي عذر با هليلو عدود دي حوقي هو بعضانو هايستو ليسا عبسيييو علمادي أقومتي علكي سينسيانكي علمي بالياشي حكستبا عررو ولي ويعكرنتي عذابية جنالو عرد رورشيهيو عرضو مثل متى دبسو عقارشو عرور كوريهيو رسع عيمهيو عدو ربو بوحشو على تاقني عافمات سريعنا نقو عيمي ايبو